حوالي شرر إسدبجوج آيشان laga soo bilaabo 9kii ilaa 28 bishii shanaad 2013 ayna arkeen argoosiga wasaaradda arrimaha gudaha iyo qaab dhismeedka maamulka gobolka Hiiraan oo sidaan kow in qaabka dhismeedka ay dawladdu u dhistay maamulka gobolka Hiiraan uu yahay mid ku dhisan cadaalad darro sababayna kala fogaansho ku yimid dawladda iyo beesha xawaadle tusaale 18 xubnood ayaa la soo magacaabay gobolka 2 xubnood kaliya ayaa lagu siiyay beesha xawaadle 2 in ciidanka beesha uu soo taagnaa una jabhadeeyay xoreynta iyo sugidda ammaanka gobolka Hiiraan in badan oo ka mid ahna ay naftooda ku waayeen ilaa haddana ay la shaqeeyaan ciidamada Amisom ayaa halkii laga abaal marin lahaa anaan wax daryeel loo fidin iyadoo ciidamada gobolada qaar dhowr jeer la siiyay mushaaradkoodii 3 in xubnihii madaxda dawladda ugu sareeyay soo booqday gobolka Hiiraan ay odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanaduba siiyeen talooyin ku aadan dhismaha maamulka gobolka Hiiraan talooyinkaas oo ay madaxdii dawladdu dhagaha ka furaysatay taasoo cadeyn u in aysan wax dan ka lahayn gobolka Hiiraan haddaba markii aan aragnay tacadiyada aan kor ku soo xusnay iyo kuwa kale ee badan waxa ay beesha xawaadle go'aan ku gaartay toddobada qodob ee hoos ku cad kow in beesha xawaadle laga bilaabo maanta ay la kalsoonidii kala noqotay dawladda federaalka Soomaaliya 2 in beesha xawaadle dhigto gogol lagu dhisayo maamulka gobolka oo cadaalad ku dhisan ayna ka soo qayb galaan dhammaan beelaha degan gobolka 3 in xildhibaanada beesha xawaadle dhammaantood muddo 7 ilaa 10 casho gudahood ku yimaadaan beledweyne si looga arrinsado maamulka cusub ee gobolka loo samaynayo 4 ciidankii la dayacay iyo hubkoodii lagu soo wareejiyo beesha daryeelkoodana la bixiyo 5 dhaqaalaha laga qaado deegaanka beesha lagu soo wareejiyo guddiga dhaqaale ee beesha lagana bixiyo mushaaradka ciidanka beesha gabagabadii waxaan mahad u celinaynaa ciidamada Itoobiya iyo kuwa walaalaha nahay ee Amisom ee gaar ahaan dawladda Djibouti cid kasta oo jecel nabadda gobolka Hiiraan waxaan cadeynaynaa in howlaha aan wadno aanay waxba u dhimaynin amniga gobolka balse beeshu ay ku doonayso xuquuqdii ka maqan wabillahi tawfiiq beesha xawaadle gobolka Hiiraan